si kasta ugu aflagaadiyay oo qaab kasta uu soo maray maanta laga bilaabo waxaan leeyahay waan ku cafiyay waxay ka tahay cafis waan ku cafiyay waxa tahay walaalkayga waxa tahay walaashayda isku dhiiganahay isku dhacaamaanahay isku dareenanahay kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal si kasta aad maqlaysan oo ay daawanaysan waxa idin fardhiyo waa Socdaal Channel halka ay daawanaysan waa YouTube Socdaal Channel iyo barta Facebook page-ka ku leeyahay ee Alist Photograph soo dhawaada markood mar labaad mar saddexaad muuqaalkan waa muuqaal ka duwan muuqaaladii hore wuxuu leeyahay xasaasiyad aad u far badan waxa uu xambaarsan yahay macno far badan markood mar labaad mar saddexaad waan ku soo celinayaa soo dhawaada adigoo fadhiyo daawo muuqaalkan adigoo istaagsan daawo jiifka waa ku daawan kartaa waad namaadsantahay 100% caawa halkan waxa u soo fadhiistay in aan ka shaaciyo kana sheego labada qodob halkaan aan soo fariistaa aan ka shaaciyo waxay tahay waxaan aaday Stadium Muqdisho waxaan taageero buuxda aniga ebid u ahayba shalayna aan taageerayay kooxda Horseed waxaan sheegay shaaciyeen Horseed inaan u soo qaaday hees hadii ay koob ka qaaday waa sida aan u sheegay una shaaciyay hees xamaasadeysan inaan u soo qaado gilgishana magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka oo dhan iyo adduunka oo idin Horseed waxaan leeyahay waa tagteen waadna tilaabsateen heesta aan ballan qaadayna waa sida aniga u ballan qaaday waad maadsantihiin 100% waxaan leeyahay dadka ka soo qayb galay kumanaan kun oo dad ka soo qayb galay dadkaas oo lagu qiyaasay 60,000 oo qof dadkaas oo dhan waxay ii fidiyeen taageero aad u waaweyn waanan uga mahadcelinayaa 100% waxayna degeen aniga qalbiyadeyda okay waxaan leeyahay qodobkayga hadii aan ku hormaro koowaad show ayuu qabsanayaa liir Socdaal Channel showgaasna wuxuu ku qabsanayaa magaalada Muqdisho showgaas wuxuu ka dhacayaa Sahel wuxuu dhacayaa 20 bisha Soomaaliyeed waxaan leeyahay iga raali noqdo markuu ugu horeyso sababtoo arrinkan waa ka soo hadli waayay waxay u kale waxay tahay xaalada aniga iheystay aanan rabin halkan inaan ka sheego waad maadsantiin 100% showgaas hadii shalay macnaha aad mooday in aniga aan qabsanayo oo aan ku qabsanayo magaalada Muqdisho Sahel inaan ku qabsanayo lacagtiisuna ay tahay $30 ma qabsan doono showgaas show hadii aan qabsanayo showgaas waxa lagu sheegay $30 lagu sheegay show hadii aan qabsanayo aniga $30 ku qabsanay show hadii aan qabsanayo waxa ku qabsanaya $5 ku qabsanaya maxay yeelay aniga waxaan ogahay baahida ka jirta dalka baahina waxa dareemi karo qofkii u soo adkaystay dareemi karo okay waxaan la socdaa baahida dalka ka jirto la socda dhibaatada dalka ka jirto waxaan ogahay la socda dhalinta Soomaaliyeed baagamuudada aheedaan oo la socdaan waxaan ahay nin ku dhex jiro dareemina karo hadii aan show qabsanayo waxa ku qabsanayaa $5 waa balan showgayga ugu horeeyo wuxuu noqonayaa $5 waana $5 okay taamaasa uu gudbaa midda labaad oo halkaan u soo fariistay oo ayna ka sheego kana shaaciyo araba waxay tahay qof walba oo isoo caayay ama isoo aflagaadeeyay amba oo dhibaato ii geystay comment igu aflagaadeeyay si kasta ugu aflagaadeeyay oo qaab kasta uu soo maray maanta laga bilaabo waxaan leeyahay waan ku cafiyay waxay ka tahay cafis waan ku cafiyay waxa tahay walaalkayga waxa tahay walaashayda isku dhiiganahay isku dhacaamaanahay isku dareenanahay dhamaanteen waxaan nahay dad wada dhashay oo family ah hal family baan ka soo jeednaa family-ka ka soo jeednana waa Soomaali waxaan idin leeyahay waa maadsantiin 100% waan idin cafiyay mana dhacayso in aan dambi amba wax la mid ah aan idin qabsado ma dhacayso marnaba waadna maadsantihiin dadka taageerada ii muujiyay garab istaagay mar walbo hadda YouTube aan leeyahay hadda jiro oo hadda aan ka dhaxadlayo wuxuu marayaa 27,000 shalay markii aan soo fariisanayo wuxuu marayay 7,000 marayay waxa maalmo sameeyay 3 maalmood sameeyay yahay wuxuu 30,000 oo ku shaqeeyaa anima sameeyay anima subscribe si anima daawada anima xasmi waa may waxa sameeyay waa idinka all waa idin jecelahay 100% wallahi billahi tallah waa idin jecelahay idin necbi aniga ay nicina all Soomaaliyeed waa idin salaama bye bye